asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat daawadayaal iyo dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaanba kusoo dhowaada barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyadii aanu kaga hadli jirnay barnaamijka darwiish t v ee sooyaalka darwiish t v kusoo dhowaada barnaamijkayaga maanta dabcan waxaa jira waxyaalo fara badan oo soomaaliya maanta mudan in laga hadlo ama barnaamijyo dooda ah laga qabto oo Soomaaliya meelo badan ka jira hase ahaatee maanta waxaanu rabnaa inaanu mar kale aanu ka hadalno arrimaha doorashooyinka wadanka Soomaaliya marka ugu horeysa waxaan rabaa bal maanta qayb ka mid ah falanqaynta barnaamijkayaga inuu noqdo hadal uu jeediyay saacada ka hor maanta siyaasi cabdixakiin dhooba daareed oo isagu muddo badan kusoo jiray siyaasadda wadanka Soomaaliya xildhibaanna ka ahaa muddo badan maamul goboleedka Puntland haddana markii ugu dambeysay ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka isagoo si dhiig ku daatay lagaga qaaday xasaanadii uu ka hayay maamulka goboleedka Puntland gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka hase ahaatee siyaasigaas ayaa isagu wuxuu aaminsan yahay ilaa iyo hadda intii ugu wardambeysay inuu isagu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ee maamul goboleedka Puntland barnaamijkayga maanta waxaan rabnaa inaanu kusoo qaadano hadal uu maanta jeediyay sida ugu maqaalahana isagoo markaas safar ku sii ah wadanka Soomaaliya hadalkaas oo ku aadana arrimaha siyaasadda wadanka Soomaaliya iyo doorashooyinka barnaamijkayga sidoo kale shalaytana waxaan uga hadalnay arrimaha doorashooyinka bal marka ugu horeysa barnaamijkaygan oo aanu ku falanqayn doono mar kale arrimaha doorashooyinka bal aynu dhageysano hadalkii uu yiri siyaasi cabdixakiin dhooba daareed barnaamijkaygana insha Allah iyo qaybihiisa kalena waanu bilaaban doonaa haddii Ilaahay idmo la socotaan siyaasadda Soomaaliya hadda mudday karkaraysay haddana waxay meeshii ugu dambeysay baad moodaa hadda inay marayso waxayna u badan tahay inay qaadato jihown ama direction ay qaadato haddii la yiraahdo waxaan rabaa marka arrintaas waxyaabo badan baa ku guda jira oo kala guurka uu kow ka yahay kala guurkaas marka qaabo badan baa loo turjumaya ama qaabo badan baa dadka madaxda Soomaaliyeed isku sheegaya ama siyaasiyiin ama saamilay waxay doonaan ha sheegteen qaybo badan oo aan wacnayn bay uga kaluumaysanayaan arrintaas waxaan rabaa markaa inaan caddeeyo mowqifka anoo ku hadlaya afka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobollada Sool iyo Sanaag inaan caddeeyo mowqifkooda ah doorashooyinka waxaan caddaynaynaa anoo ku hadlaya afkaas inaan doorashada kala guurka Soomaaliya xilliga lagu jiro amba qaabka doorashadaasi u dhici doonto oo ah qaabkii laga heshiiyey ama shirkii ku soo dhamaaday meeshii la oran jiray Samareeb 3 oo hawshiisu hadda ay dhamaatay laakiin hadda la doonayo in dib loo furfuro marka koowaad waxaan sheegaynaa inaanu taageerayno aanu taageersanahay shirkii halkaa ku soo dhamaaday wixii ka soo baxay oo ahaa doorashada danba ha noqoto laakiin wax ka turjumaya ama u eg in doonistii dadka ama shacabka wuxuun ay ka soo noqonayaan maadaama la 301 ayaa dooranaysa qofkii arrintaas marka taas waan taageeraynaa qodobka labaad waxaan caddaynayaa in gobollada xildhibaanadii ka soo geli jiray ee dowladda Soomaaliyeed in aanay ku hadli karin amba aanay matali karin siyaasiyiinta daalimiinta ah ee doonaya dadka inay ku dulnoolaadaan inaanay nagu matalinin gobollada xildhibaanadooda inaanay matalinin ee dadkaasi ay iyagu masiirkooda iyo dantooda iyo cidda ay u baahan yihiin iyagu ay soo dooran doonaan doorashada magaceeduna uu ahaa deegaan doorasho inaan waxba iska bedelin in ay noqoto ama deegaan doorasho oo deegaan doorashada dadkaasi ay degan yihiin laga soo doorto dadka si shacabka doonistiisa iyo iraadadiisu ay noqoto shayga koowaad uguna muhiimsan waxaan arrintaas kaloo rabaa inaan caddeeyo haddii waxaan hadda maqlayaa madaxweynaha Puntland baa ku gorgortamaya Sool iyo Sanaag xildhibaanadoodii waa in laga soo xulaa Puntland naguma matelo oo mas'uul kama aha oo gacan kuma hayo gobollada waxaan u sheegaynaa
dadiyowga ay khusayso oo kow ay ka tahay dowladda federaalka ah madaxdeeda waxaan u sheegaynaa guddida doorashooyinka ee heer qaran waxaan u sheegaynaa international community-ga ama beesha lixaad oo arrintan kule lugta inaanan nagu metelin kuna hadli karin masiirkayaga iyo gobolladaa dadkii ka soo gelayay wax mas-uuliyada oo ka saaran ama gacanay ugu jiraan ama hawluu ku leeyahayna aanay jirin keliya inuu rabo inuu maqaarsaar ka dhigo waxaan kaloo xusuusinayaa dadka aan la hadlay oo saddexdaa qole ugu muhiimsan yihiin gobolladaasi 30 sano ee Soomaaliya soo dhaaftay burburka Soomaaliya way la wadaageen laakiin wax u dheeraada baa jira Soomaalidu waxay ku mahmahdaa waxarta iyo rido malakamoodka waa u sameeyeen laakiin waxarta mareegta u dheeriyada gobollada waxa u dheeraa god inay ku jiraan waxa u dheeraa in loo yaqaan dispute area waxa u dheeraa markasta masiirkooda iyo maslaxadooda inaanay u madax banaanayn ee cid ku gorgortamaysay waxaan cadaynaynaa oo aan ku celinayaa haddii saddexda qole aan xusay oo madaxda dowladda federaalka ay ugu horeyso oo ay ku xigaan guddida doorashooyinka qaran oo ay ku xigaan international community haddii ay dhayarsadaan hadalkayaga iyo qayradayada waxaanu isu haysanaa bridgekii Soomaali isu hayay inaan nahay hadday dhayarsadaan oo fududaystaan waxaan caddaynayaa anoo afkaa ku hadlaya inay meel fog ka dooni doonaan gobollada iyo dadka ku nool iyo Soomaali masiirkeedaba because inaanu Soomaalinimo ku dhimanno bridge ahaano anagu bridgekii Soomaali isu hayay iyo in xuquuqdeedii ay noqoto xuquuq aan meel ku tirsanayn ee gorgortan iyo ku jirta markasta hadal ma isgelayaan mana aqbalayno waxaan intaa kaga baxayaa wax sheegii aan u sheegayay dadka arrintani ay khusayso waxaan rabaa inaan la hadlo kelmad iraado iyagana dadka gobollada ka soo jeeda waxaan leeyahay dadka gobollada ka soo jeeda muddo badan baa god ku jirta haddana godkii mid ka sii fog baa la rabaa in idinku rido ummad baa tihiin ooman oo nool ummad baa tihiin sida ummadaha ah bilaahi calaykum waxaan ka codsanayaa in aad masiirkiina ka hadashaan ka mudaharaadaan caddaysaan qoraal hadday tahay iyo hadal hadday tahay iyo qaab kasta oo aad ku cabiri kartaan fakarkiina iyo doonistiina iyo waxa aad rabtaan inaad caddaysaan oo aydan aamusin meel kasta aad joogtaan hadday yihiin jaaliyadaha dibadda jira hadday yihiin dadka gobollada jooga oo dalka Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka kaga nooshihiin inaad caddaysaan mowqifkiina oo aad u caddaysaan dadka arrintaasi khusayso waayo ummad soo taagan oo hadlayso oo qaylinayso oo leh masiirkayga anaa ka talinaya oo anaa ka hadlaya oo anaa leh ciidana dusha ka marmayso laakiin haddaad aamustaan aamuskaasuun baan idinku meherin doonaa idinkagana intaasaan leeyahay hadalkaygu intaasuunbu ku koobnaa waxaan ku celinayaa arrintaa yaan la dhayarsanin saddexda qolo oo aan halkan ka magacaabay arrintaa ayay fududaysanin waan ku celinayaa madaxda dowladda guddida qaranka ee doorashooyinka international community-ga arrintaa hadday fududaystaan meel fog baa laga dooni doonaa shacabka ku nool gobollada waayahay dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijkan gaarka ah oo aan uga hadlayno arrimaha doorashooyinka sida noocaadada ahba ma jirto hadda si gaar ah qof aan ku casuumay barnaamijkan waxaan ugu talagalay dadka daawadayaasha ah in ay nagala qayb qaataan dooda oo fakarkiina iyo caqligiina aad ka dhiibataan numberka ku xusan shaashada ayaad iga soo wici kartaan haddii aad rabtid in aad barnaamijkan nagala qayb qaadatid barnaamijkan waxaan uga hadlaynaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya dabcan Soomaaliya waa wadan ballaaran siyaabo kala duwanna way u quseyn doontaa bulshada Soomaaliyeed caqabado badanna sida aanu barnaamijkaygii shalayto aanu ku soo qaadanay waa haysataa wadanka guud ahaan Soomaaliya iyo in ay ka dhacdo Soomaaliya doorasho inay ka dhacdo shalayta barnaamijkayga waxyaalahaanu ka hadalnay waxaa ka mid ahaa qaababka bal musuq maasuqa ama corruptionka looga ilaalin karo inay dhacdo doorasho oo ay ka mid tahay lacagaha laaluushka ee la kala qaato qaar ka mid a dadkii barnaamijka shalayta noogu marti ahaa waxay xuseen in loo baahan yahay xataa culimmadu Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan
sidii loo mamnuuci lahaa ama loo joojin lahaa in laaluush lagu kala qaato arrimaha siyaasadda, gaar ahaan xildhibaanka marka uu isagu booska doonayo iyo sidaasoo kale marka uu madaxweynuhu doonayaba in lacaga lagu kala qaato. arrintaas oon u malaynayo caalamka maanta hadda joogno soomaaliya meel la mid a in aysan jirin si cad lacaga kaasha loogu kala qaato jagooyinka. arrimahaasi waxay keeneen in dadkii baahidii ay u qabeen dowladnimada in ay waayaan iyo matalaadii xildhibaanku inuu ku matalo shacabkaas, maadaama xildhibaankii uu noqday qof aanan si waafiya aanan uga hadlaynin arrimaha dhibaatooyinka degaankii laga soo doortay ka jira, taasoo keenta marka xukuumadda kaliya inay marka walba ay go-aansato waxa wadanka ka dhacaya iyo siday wax loo sameynayo. waxaana nasiib darra ah sidaanu shalayna xusnay in dadka maanta ka doodaya ay yihiin qaybihii xukuumadda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, laakiin baarlamaankii soomaaliyeed oo dhan uu ka maqan yahay doorashada iyo sida ay u dhici doonto iyo qaabka loo marayo. barnaamijkan oo ah barnaamij aada u muhiima ayaan waxaan rabnaa inaanu ku lafgurno arrimaha qaar, gaar ahaan barnaamijkeyga maanta waxaan rabnaa bal Dhoobo Daareed oo isagu guddoomiye kasoo noqday Puntland hadaladiisa in aanu ku falanqayno. waxyaalaha aan jeclahay inay dadku ay fahmaan waxaa ka mid ah uu hadalkiisa yiri kala guur. sida aad ogtihiin xilli walba haddaad doonaysid in aad siyaasadda ama aad qaybtii aad saamigii aad ku lahayd doorashada ama dowladda aad ka qayb qaadatid, dadku waa inay fahansan yihiin in ay ka qayb qaataan kala guurka oo ah xilliga doorashooyinku ay socdaan. xilligaas oo ah xilli ay dowladda wadanka ka jirta ay isbedelayso, ay imanayaan xildhibaano cusub, ay imanayaan xukuumad cusub, laga yaabay inuu madaxweyne cusub yimaado, laga yaabay inuu madaxweynaha baarlamaanka ama xukuumaddaasi ay markaasi ay la timaado siyaasad cusub. sidaa la adligeed xilligan kala guurka ah sida uu sheegay Dhoobo Daareed waa laga maarmaan in dadka shacabka ah ay iyagu codkooda, maadaama xildhibaanka uu yahay qofka madaxweynaha doorta, in ay saameyn ay ku sameeyaan ama ay ku yeeshaan gacan ama qayb sida uu xildhibaanku uu ku tegayo golaha baarlamaanka wadanka Soomaaliya iyo sida cidda hadhowtii uma noqon karta ummadda Soomaaliyeed madaxweyne. waana nasiib darro haddii labaduba ay qaab musuq maasuq ay ku dhacaan oo aan wax badan la iska weydiin qofka waxa uu yahay iyo wuxuu qabanayo. waxyaalaha kale oo aan bal rabna inaanu ka hadalno waxaa ka mid ah waxa uu ku tilmaamay siyaasiyiin gaara oo yiraahda waxaan nahay saamileyda wadanka Soomaaliya marka ay noqoto siyaasadda inay yihiin kuwa hadda ku gorgortamaya arrimahan doorashooyinka, gaar ahaan gobolada uu xusay sida Sool iyo Sanaag. arrintaa naftigeeda waa rabnaa inaan ka hadalno siyaasiyiinta uu ka hadlayo. waxa uuna sheegayba madaxweynaha maamul goboleedka Puntland in uusan matalin, isagoo ah qofka ku gorgortamaya in uusan haddana uusan matalin gobolada, isagoo uga dhigay sabab in uusanba gacanta uusan ku hayn. codkiina iyo fikirkiina xor buu idin yahay. waan jeclahay qofkii raba inuu barnaamijkan nagala qayb qaato uu iga soo waco nambarka aan shaashadan idinku soo qori doono ama ku qoran qoraalka korkiisa 612-232-38 ma jiro qof gaara oo barnaamijkan aan maanta si gaara aan ugu casuumay, laakiin waxaan rabaa insha Allah dadka sharafta leh ee igu jira page-ka in ay codkooda ama fakarkooda ay nagala soo qayb qaataan adiga sida aad u aragtid hadalka uu yiri Dhoobo Daareed iyo arrimahan doorashooyinkaba haddii ilaahay idmo. marka wax yar baan ku celinaynaa insha Allah hadalkii Dhoobo Daareed haddii ilaahay idmo, kadibna haddii ilaahay idmo waxaan isku dayayaa bal in aanu falanqaynta aanu u gudubno. qof walba oo raba inuu fakarkiisa uu ka dhiibta na insha Allah wuu soo wici karaa barnaamijka, waadna nagala qayb qaadan kartaan insha Allah. saad la socotaan siyaasadda Soomaaliya hadda mudday karkaraysay, haddana waxay meeshii ugu dambeysay baad moodaa hadda inay marayso. waxayna u badan tahay inay qaadato jihown ama direction inay qaadato haddii la yiraahdo. waxaan rabaa marka arrintaas waxyaaba badan baa ku guda jira oo kala guurka uu kow ka yahay. kala guurkaas marka
qaabo badan baa loo turjumaya ama qaabo badan baa dadka madaxda soomaaliyeed isku sheegaya ama siyaasiyiin ama saamilay waxay doonaan ha sheegteene qaybo badan oo aan wacnayn bay uga kalluumaysanayaan arrintaas. waxaan rabaa markaana inaan caddeeyo mowqifka anoo ku hadlaya afka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobollada sool iyo sanaag inaan caddeeyo mowqifkooda ah doorashooyinka. waxaan caddaynaynaa anoo ku hadlaya afkaas inaan doorashada kala guurka soomaaliya xilliga lagu jiro amba qaabka doorashadaasi u dhici doonto oo ah qaabkii laga heshiiyey ama shirkii kusoo dhammaaday meeshii la ohan jiray Samareeb 3 oo hawshiisu hadda ay dhammaatay laakiin hadda la doonayay in dib loo furfuro. marka koowaad waxaan sheegaynaa inaanu taageersannahay shirkii halkaa kusoo dhammaaday wixii ka soo baxay oo ahaa doorashada danba ha noqoto laakiin wax ka turjumaya ama u eg in doonistii dadka ama shacabka wuxuun ay ka soo noqonayaan maadaama la yidhi 301 ayaa dooranaysa qofkii. arrintaas marka taas waan taageeraynaa qodobka labaad waxaan caddaynayaa in gobollada xildhibaanadii ka soo geli jiray ee dowladda soomaaliyeed in aanay ku hadli karin amba aanay mateli karin siyaasiyiinta daalimiinta ah ee doonaya dadka inay ku dulnoolaadaan inaanay nagu matelinin gobollada xildhibaanadooda inaanay matelinin. raalli noqda qofkii ugu horreeyey ayaana soo wacay. waxaanu ka hadlaynaa kusoo dhawow cali barnaamijka waxaanu ka hadlaynaa guud ahaan arrimaha doorashooyinka soomaaliya ayaanu ka hadlaynaa. waxaanu ka hadlaynaa doorashada xildhibaanada iyo muhiimiyadda ay leedahay dadka shacabka ah ee xildhibaanadu ay matalayaan inay ka qayb qaataan arrimaha doorashooyinka. waxaan kaloo ka hadlaynaa hadal uu jeediyey siyaasi cabdi xakiim dhoobadaareed oo isagu uu ku tilmaamay in deegaanada sool iyo sanaag oo kale doorashooyinkooda deegaanka toos ay uga dhacdo oo aan madaxweynaha maamul goboleedka puntland uusan isagu ku gorgortamin. bal kusoo dhawow barnaamijka aragtidaada iyo fikirkaaga. taasina waa fikir fiican. hadda dad iyagu ku nool mandaqada sool sanaag iyo cayn iyo sida oo kale maakhl state waxa ay ku dulman yihiin dabcan doorashooyinkii ugu dambeeyey oo dhammaan waxay ka dhacayeen maamulka puntland laakiin dadkaasi waa dad dulman. haddii hadda doorashadaasina ay ka dhacdo puntland ay maamusho wax kasoo naasacad male waxay noqonayaan wax gacan ku rimis ah. xildhibaanadoodana ma tegi karaan deegaanadii laga soo doortay iyo dadkii ay matalayeen waxna uma qaban karaan. waxaa fiicnaan lahayd ama 100% fiicnaan lahayd in sida ugu dhaqsaha badan haddii aan lagu dooran karin deegaanada dadkaas ay kasoo jeedaan mandaqadaha ay maakhl state iyo khaatumo in lagu doorto xildhibaanada goboladaas kasoo baxaya magaalada muqdisho. waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waa maxay sababta aad ku salaynaysid. dad badan baa waxay ku eedeeyaan xildhibaanada gobolada kasoo jeeda sool sanaag iyo caynba ee jooga magaalada muqdisho sababaha ayaan uga hadlin arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo waxqabadka goboladaasba inay tahay sababtoy tahay inay ahaayeen markii horeba dad ay xulatay puntland oo si gaar ah aanan uga hadli karin arrimaha gobolada. waa maxay adigu waxaad ku eedeynaysid oo leedahay xildhibaanada hadda joogo ma matalaan sidaa laadligeed waxaa muhiima in dad matali karaya ay doortaan. walaalow tan iyo dowladdii cabdillaahi yuusuf xildhibaanada matala labada gobol kasoo jeeda maakhl state iyo khaatimo state puntland baa xulanaysay. haba xushaane xildhibaan hal riig oo ceel ah ama ha noqoto daawo ha noqoto daawo baanadhow ha noqoto ama iskool ka furay lama arag. ha ugu weynaado ama ha ugu yaraado dabcan waxaa jirtay maalmuhu bilaabday hadda cudurka covid-19 waxaa jiray wasiir bidaan oo ahaa xildhibaan kasoo jeeda gobolada sool sanaag iyo cayn baa waxa uu geeyey daawo mucaawimo ah oo caalamku ugu deeqay waddanka soomaaliya gobolka buuhoodle gobolka cayn buu geeyey. kaas baanu aragnay laakiin tan iyo 2007 lama arag xildhibaan intuu kasoo jeeda deegaanadaas yimaada oo dadkiisii gobol la fadhiiso oo maxaan inay qabtaa maxaan qabanaya waxaan digaya. laakiin
xildhibaanadaas waa xildhibaano dantooda wata xildhibaanada puntland ay soo xulanayso wayna shaqaysanayaan magacii reerka ay ku shaqaysanayaan iyo mandaqadaas laakiin wax dan ah ay u hayaan male shacabka kasoo jeeda maakhir iyo khaatumo waxay ku qasban yihiin xildhibaanada hadda la dooran doono oo xukuumadda cusub geli doona in lagu doorto gobolka banaadir ama meel kale oo ka baxsan puntland in lagu doorto laakiin dabcan haddii puntland ay soo xusho ay puntland lagu doorto anigu waxaan malaynayaa dee waa qowda maqashi waxna waayahay waayahay aad baad u mahadsan tahay kulley nin suxufiyaa tahay siyaasaddana ninka hadduu suxufi ah yahay waa xogtana wuu hayaa wuuna u warhayaa waadna ka warhaysaa waa maxay aad is leedahay adigu aragtidaada sidaan ognahay madaxweyne deni oo kale sida uu xukunka ku yimid waa ognahay waxa uu dabcan la manipulate gareeyaa xildhibaanada marar badanna waxaa adiguna aad og tahay aniguna aan ogahay in aad loo musuq maasuqo xildhibaanka degaanka matala oo uu noqdo mid aanan ka shaqayn danta dadkii degaanka laakiin ka shaqeeya siyaasiga markaas wata ama qolada lacagta ka bixisay waa maxay ulajeedka baad is leedahay madaxda hadda wadanka isku haysata xukunka in xildhibaankaaga la hantiyo ama xildhibaanada la hantiyo والله waxaa jirta walaalow tan iyo xukuumadii kala dambeeyay ee Puntland ka soo arriminayay dadyogu ku dhaqan mandaqadan aan hadda ka sheekaynanay ah soo sanad yacayn iyo maakhir ku nool xildhibaano gacan kurinayay ahaayeen oo Puntland ka tusaale ahaan madaxweyne Deni xildhibaanada ka soo jeeda Puntland oo dhan wuxuu rabaa inuu isagu maamulo oo tusaale ahaan hadda Axmed Lario TV ba daawanaysa TV ga daawanaysa remote baad u haysataa Soomaa remote-ka marba waa TV meeshaada u baahnay waa iska bedelaysaa marka xildhibaanada isagu wuxuu rabaa inuu remote-ka u hayo ku rabo uu baxiyo ku doonay uu weligu u joogo tusaale ahaan xildhibaan adigu ma kula tahay xildhibaan ka soo jeeda labada mandaqadood aan sheegay oo intuu yimi gobolkiisii ama ceel ama cusbitaal ama baana dhowr keenay I think I never see for my life xildhibaan jiro xildhibaanka sidiisa maxaa lagu qadariyaa shacabkii inuu u yimaado uu furo meel kasta oo uu dhaho maxaa la dhahaa waxaan aan qabtay waxqabadkaygii waa kan 5 sano lay doortay ama 4 sano lay doortay ma jiro dabcan waxaa ka dhacay mandaqadan hadda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn marba waxa ka dhacay dagaal shaqaaqo oo laba beelood walaal ah xildhibaan tusaale ahaan bidaan oo kale hadda wasiir siyaaya wasiir ah wuxuu sameeyay gobolkii laga soo doortay meeshii fowdada ay ka dhacday ma tegin dalka ayuu meedkii ka raacay muqdisho la tegay waana xildhibaankii la rabay inuu meesha shaqaaqadu ka dhacday daawac iyo wixii dhimasha intuu u tago hor fadhiisto ma hor fadhiisan dalka ayuu yimi dalka ayuu ka raacay uu isku sawiray uu soo noqday hadhowna uma tegin dadkiisii dhibaatada ku dhacday deni u tagay taasi walaal waa wax aan macquul gal ahayn in dadkaas ay dib noogu soo noqdaan lacala hadday dib noogu soo noqdaanna kulley 4 sano khasaara ama 5 sano khasaara weligeed halkaas aan taagnaanayno waayahay su-aasha ugu dambaysa dabcan waan jeclaa inaan bal adiga waraysi aan ku siiyo wax badan ku weydiiyo wuxuu ku tilmaamay dhooba daareed oo kale arrimahan kala guur sida aad og tahayna dadka gobolada aan ka hadlayno hadda waxaa lagu eedeeyaa inay marka horena iska seexdaan oo ayan siyaasaddu aada uga doodin falanqayn ayan arrimaheeda aada uga hadlin marka dambe ay doorashooyinku dhacaanna ay eedeeyaan ama eed bilaaban hadda waad aragtaa Puntland 24 sac siyaasadda federaalka ayay ka hadashaa dabcan waxa ay u dagaalamaysa waxa weeye in madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha imanaya inuu noqdo mid cilaaqaad wanaagsan gobolada la leh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa la igu yiri ama la leeyahay qodob waxaa jira 301 qof oo deegaanka ka mid ah in ay soo dooranayaan qofka xildhibaanka ah haddaan ku weydiiyo maxaad oran lahayd dadkaas xildhibaanka dooranaya inay markaa maskaxda ku hayaan ama ay ka fekeraan oo qaabkan musuqa ah ee qofka uu lacag la weydiinayo kii lacagta badan laga bixiyay lacagaha badankoodna waxaan maqlay waxa bixiya cidda madaxweynenimada doonaysa oo qaarkood wadamo shisheeye ah ka soo qaada marka qabaa'ilaadku iyaga qaladka leh sababtoo tahay iyaga iibsaday booskooda maxaad ka oran lahayd marka qabaa'ilaadka ama kuwa doorashada sameynaya طبعا والله سؤال آدم ينسوي ولا سؤال شعبوناي سؤال عن أحمد وحاجرة أضيال باجرة أما ضد كان leaders أو ضد كان عاقلين تنو أما عقاشة ورت حال من بيشيريان مرك أي دور شر سودو ده ووقت كلي أي تاجران سؤال عن حكومة 2017 مركي وفرماج إيمانية أو الدورانية
waxaa jiray one of my best friend oo classmate aan wada ahayn oo sharaxnaa kursiga waxay ku wada sharaxnaayeen 5 nin iyo 2 naagood ha ku wada sharaxnaadeen 2 qof oo dumar lacag khayraadada laga qaatay odayaasha dhaqankaana fawdadan iyo had salahan 300 baa soo dooranaysa salahan beelaha Soomaaliyeed dad baan intaas aan laga helin intaas erga aan laga helaynin waa gartay odayaasha dhibaatada wada odayaashuna waxa ay wadaan nin bay keensanayaan meeshaas ninkaasi 4 sano wuxuu qaadanayaa uu shaqaysanayaa dantiisii inuu eegayaa laakiin dantii shacabkii uu matalay ma eegayo odayaashuna waxay eegayaan cuntada yar iyo lacagta ay ka qaadanayaan maalinka ay leeyihiin waa ku xuleynaa intaas ay eeganayaan laakiin ninkaas uu sameynaya 4 sano uu ka faa'iideysanaya wax xadi karaa wuxuu dhici karo dhacaya si waxba kama gelin waaye 4 sano eeganaya waaye waxaan rabaa su-aasha ugu dambaysa maqaamka muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka waxaan maqlayay galmudug oo taageeray kana hadlay maqaamka muqdisho dabcan muqdisho caasimadda wadanka waana magaalo dhibaato badan u mudatay Soomaaliya in ay u noqoto caasimad wayna mudan tahay hase ahaatee laakiin madaxweynaha federaalka naftigiisa xaruntiisa ku taala Villa Soomaaliya waa kii ka hadlay in loo ansixiyo 13 xubnood maxaa keenay madaxda Soomaalida inay ka hadlin goboladan waqooyiga gaar ahaan kuwa loo yaqaano dispute haday yihiin madaxweynaha federaalka iyo ama ra'iisul wasaarihiisii iyo xubnahan kale ee aanan hada galmudug oo kale way taageertay banaadir hirshabeelle oo kale waa kuwii madaxweynuhu uu ka hadlay oo taageeray maqaamka muqdisho marka maxaa keenay in madaxda Soomaalida kale inay ka hadli waayaan gobolada kale Soomaaliyeed ee dhibaatadu ayaguna ka jirta oo u baahan in loo helo nidaam xal siyaasadeed ah waniyo waxaa jirta Axmed Laariyo tusaalahaan waxaa jirta wax la dhaho tusaalahaan madaxweyne Qorqor waxa uu ka hadlay maqaamkii muqdisho oo 13 xildhibaan ee la siiyay gobolka Banaadir taasina uu ku saxan yahay inuu ka hadlo because tusaalahaan madaxweyne Qorqor isaga laftirkiisa tusaalahaan waxaa qaadaysa tusaalahaan qabiil ahaan uu ka soo galaya dadka deegaanka muqdisho marka inuu ka hadlo waa dantiisa laakiin dadyoga u dhashay gobolada Sool Sanaag ee mandaqada degan Khaatumo iyo Maakhir degan dadyogu ugu jiray dawladda waxa ay yihiin dad caadaqaatayaal aan ka hadli karin maanta dantooda markuu madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo uu lahaa calaamadinay uu lahaa dispute area way salahan koonfurta dhul waxaa jira go'aan nabadiidku ay xukumaan dispute area laba dhaho laakiin madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo intuu calaamad su'aal saaray uu dhahay dhulka ma la isku haystaa dabcan waa la isku haystay hadda isku haystee yaa isku haysta laba maamul baa isku haysta laakiin dadkii deegaankaas deganaa dadkii siyaasadda ugu jiray baa hurda up to now way hurdaan I don't know xilliga ay hurdada ka kici doonaan tusaalahaan meesha uu ka lahaa Cabdullaahi Farmaajo dispute area way Sool Sanaag yacayn tusaalahaan waxaa fadhiyay Jamaal baa fadhiyay wasiir Bidaan baa fadhiyay I think Liban Anab baa fadhiyay dad badan baa fadhiyay qof ka hadlay oo hadal ku celiyo ku dhan madaxweyne dhulkayaga la isku haystaa ma jirin dadka deegaanadaas ka soo jeeda 100% way hurdaan wasiirka qorsheynta Jamaal waa nin cod ku leh nabad inuu istaagay yahay uu ka hadlo dhulkaas waa dhulkayagii anaana u matalay dowladda dhexe taasna madaxweyne ma jirin sida oo kale wasiir Bidaan waa Khaatumo inuu hadal leeyahay laakiin ma hadlin dadka siyaasadda noogu jira waxay dad lazy ah oo careless people ah waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay cali waa nin saxaafadda muddo badan ku jiray waxaan jeclahay inaad noqotid insha Allah dadka Darwish TV nagala shaqeeya wuxuuna ku sugan yahay hadda magaalada Nairobi aad baad u mahadsan tahay qaar kamida dadka kale baan rabaa inaan siiyo haddii aan ku baahana cali waa kugu soo celinayna insha Allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cali oo kamida dhalinyarada miidiyaha ka shaqeysa oo hadda ku sugan magaalada Nairobi qayb nagala qayb qaatay insha Allah waxaan siin doonaa dadka kale barnaamijka rabno inay nagala qayb qaataan waxaan ka hadlaynaa waxa weeye arrimaha doorashooyinka marka waxaan ku celiyay ku soo dhawow barnaamijka wariye cali dhagjar ku soo dhawow
axmed aad baad u mahadsan tahay waa ku dhawahay barnaamijka waayahay waxaan ka hadlaynaa arrimaha doorashooyinka waddankii baa joogtaa gaar ahaan gobolka cayn magaalada buuhoodle dhaqdhaqaaqa ama dareenka bulshada maxaad nala wadaagi kartaa arrimahan ku aadan doorashooyinka waddanka soomaaliya iyo xildhibaanada mustaqbalka ku matali doona deegaanka tusaale ahaan hadda adiga aad joogtid bal ka warra akhbaarta. axmed aad baad u mahadsan tahay horta marka hore waan idiin hambaleynayaa qoladiina darawiish t v iyo barnaamijkan cusub aad wadaan iyo t v-ga hawada soo gelaya oo runtii dadkan deegaanada sool sanaag iyo cayn ay aada ugu baahnaayeen. aad baad u mahadsantahay. haddaa ka gudbo su-aashaadi weydiisay waa su-aal aada u muhiim axmedow oo hadda waxyaabaha aadnu dadku inay aada uga wada hadlayaan oo ay tahay in arrimaha doorashooyinka hadda la filayo sanadkan 2020 inay ka dhacaan Soomaaliya aad baa looga hadlaya dadka deegaanada sool sanaag cayna waxaa ka go'an maanta in xildhibaanadooda lagu soo xilo sidii hore baa u sheegay guddiga doorashooyinku deegaanadooda baa ka go'an oo aan horey loogu xulin sidii dhici jirtay ilaa deegaanada Puntland maamulka Puntland gacanta uu ku hayo halkan barnaamijyo ka dhacay shirar baa ka soconaya marka axmed dadka dareenkooda aad u kacsan yahay dadkan waxay rabaan in xildhibaanadan iyaga matalaya deegaankooda laga xiro si hadhowto loola xisaabtamo waxaa dhacday xildhibaanada la doortaa dad baa sanad walba la doortaa ma soo laabtaan lama arko deegaanada ma soo laabtaan mana yimaadaan mana hadlaan waxtarna ma soo gaarsiiyaan marka xildhibaan baan ahay dadkiina dawladda dhexanadaan ku matalaya kuna arki maayo oo garowe iyo meelo kale aan laga dooran baan ka degaya marka ra'yiga de macquul noqon maayo axmed waa la daalay dadkana maanta way daalan yihiin fariintoodana way u gudbiyeen dawladda dhexe ee federaaliga ee Soomaaliya oo haatan axmed way hortaala. waayahay waxaan rabaa bal inaan su-aal ku weydiiyo dabcan magaalada hadda buuhoodle waa magaalo aada u ballaaran waa magaalo weyn dabcan aadna way u kortay waxaan u malaynayaa magaaladu sidaasoo kale magaalo siyaasadeed hadday noqoto waad ogtahay maamul goboleedyada caasimadahooda waxyaalaha ay ku koreen hoteeladooda ama maqaayadahooda waxaan maqlay magaalada muqdisho oo caasimad u ah federaalka hoteelka bishii qaarkood waa $2,000 marka buuhoodle haddayba awoodin hadday xildhibaanadeeda hubsato in lagu doorto waxaan u malaynayaa dhaqaale xoog leh ayaa kasoo geli lahaa ergooyinka ka imanaya deegaanaadka kala duwan ee imanaya magaalada caasimadda ah iyo qarashka badan ee soo gelaya marka ma ka fikerayaan dadka deegaankaasi in ay maqaam iyagu naftigooda ku yeeshaan siyaasadda Soomaaliya sababtoo tahay baarlamaanka xubinta haddii deegaanka toos ay uga timaado dabcan waxay ku yeelanaysaa saameyn sidee kula tahay inay dadka aragtidooda inay xildhibaankoodu u madax bannaanaado deegaankana laga doorto. axmed kaas dadku aad bay haddii sawirkooda hortaan kaas iyo magaaladu waa magaalo doorasho inay ka dhacdo qaadi karta ammaan ahaan bay u fiican tahay axmedow kow hodheelo waaweyn oo lagu soo dego hurdada waa leedahay kuwa cuntay leedahay airportka baa noo furan oo wiig walba diyaarad baa noo timaada dadka xanuunsanaya iyo kuwa rakaabka iyo ganacsigii iyo alaabadii qofku intuu subaxii kasoo qadeeyo ka quraacda Buuhoodle uu aayar markiiba ka qadeynaya Muqdisho marka ammaankuna waa halkan ciidamo deegaanka awaa jooga dadku waa nabadgelyo kusoo toosaan ku seexdaan waxa weeye waxaan ku jirnaa tubtii nabadda iyo horumarka Muqdisho qofka ka yimaada iyo xildhibaan ka yimaada deegaan doorasho sheegtay hataa doorashada weyn ee Soomaaliya halka in lagu qabto dadku ay ku shidaan marka taas hoteelada iyo amniga taas baan ka leeyahay maanta dadkan waxaa u cuntami kartaa in xildhibaankooda lagu doorto halka oo ay arkaan oo ay u codeeyaan oo 300 qof ee xildhibaan walba dooranaya inay halkan xushaan ba axmed oo raba ma aha dad inta iska tagaan iyagu shaqo tagay oo aan dib loo arkin waa laga dadkan way daaleen ilaa 1998 oo Puntland aasay baa dadkan ama dowladda federaaliga ee Soomaaliya kumeel gaar ha noqoto ama sanadda federaaliga ha noqoto baa dadkan meelkan laga xulay miyaan laga gudbahay axmedow maanta ay taagan yihiin in dadkan iyagu ay doortaan oo ay xaquuqdooda ay toos u helaan.
waaya waa sax waan aad baan ugu faraxsanahay horta waxaan xasuustaa garoonka marka la dhisayey rag hadda gobolka Minnesota jooga markii ugu horeysay aan boocam online ka shaqayn jiray waa la yaab bay ugu ahayd markii la garoon baa meesha laga dhisaya laakiin waxaan xasuustaa xilliga ogeysiisyada aan dadka u sameyn jiray aan u gelin jiray boocam online oo kale shirkaasaa jira dhaqaale lagu ururinayo garoonka muuqaaladii ugu dambeeyay aan arkayna aad baan ugu faraxsanahay garoonka nafsad ahaantiisa faa'iido badan buu u keenay baa lagu yiri bulshada hawdka degan oo idil hadday dhinac walba ka degan tahay gobolka Cayn aan Buuhoodle wax yar bal nooga waran faa'iidada uu u yeeshay bulshada dhinaca degan hawdka haddii dhinaca Itoobiya gudaheeda loo galo hadday noqoto dhinaca waqooyiga haddii la sii aado iyo dadka deegaanka ba sida uu anfacay gaar ahaan inuu gaarsiiyo magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo kale si ay u helaan caafimaadka oo kale أحمدو دياردن ويقول بتمادك كيمانيا قبل كدولو فوق مركب ولا تابع كشيء هل كان حفيز بكليهم ويسوى عيان قفك ودير كيمانيا يقفك كيمانيا إلى برعو إلى لاسعانوس إلى بوعمة إلى قاسامو إلى وحي هل كان مدقات دولدن وإسكدا برعا مانوال بهالك اللوغي ما دقفك سبحي intuu ka soo kaco burco alaasayda hore ka soo kaco oo aayar falayga ka fuulaya markiiba airportka Buuhoodle Ismaaciil Mire oo diyaaradii ay ku sugasho ay taagan tahay waxa uu sii dheer baasaboorkii oo qofkii halkan Axmed oo ka qaadanayo oo baasaboor weyn uu ka maqnaanayo marka halkan markiiba laanta socdaalka halkan aad ku xafiiskooda marka waxa istur saaran xashkii xitaa adu qofka halkan iska sawirayay dowladda fududeynayso waxa weeye diyaaradan hadda waxay hadii sanadka inta sanadkan waxa ku xunaa oo COVID-19 ku xiray waxa weeye de waa fudud baa ugu tagaysaa aad u doortaa halka ma subaxii ka baxaysaa ayr baa lagu diyaaradaha kale xaska u soo gudbay xamar baa raacaysa marka taasna way fududeysay dadkii xanuunsanayay alaabadii ganacsigii qudaartii war waxa weeye meesha nimca laga helay qofku weyn intuu maqnaado حمر أما رجعنا مقرات أما الدرحيس هوادو أما عفماد هوادو أما وحبرشوا هادو وحبرشوا دي بضفي أرضي ومركبة أركن وايه على لو ده مش هو كوبي كرنا فايد أحمد والجهلي وايه سؤالي أنت أنا كنا نقول سياسة طبعا ما دام الدجان كان يصلحين بط وحيلتها هدي إيربور هذا لبديه ما لبدنا لقسم إيربور رفيعا وحيل نقول هاد فرصة دقالة أما هل مرن أي دت كسر جلان إيربور كوان أركي أنت أنا سؤالك الكويدين وعيد وهذا إيربور ربنا صوماليا ولا لسه ما حد سلا هاي إيربور كو waxaan rabaa halkan aan ka xuso maamulada Garowe iyo Hargeysa waxay dadaal badan ku bixiyeen in diyaaradda ay joojiyaan oo loo baahan yahay dadka deegaanka ayagu aanay rabin in qof xor ah halkan uu ka dhoof marka waxaan u sheegnaa wardiwa deegaanada ka dadkoodii baa tashaday waxa waa dhul Soomaaliyeed inay wax ka inay maanta looga baahan inay ku tagadaan go ahead hore u socda laakiin ma ahayn in xafiisyada diyaaradda la dacweeyo diyaaradaha la dacweeyo waxay rabaan iyagu in laga dhoofo kaliya waarun waxaan ogahay adaa kule waxaan ogahay dhinaca Somaliland waqooyiga markaa fiirisid waxyaalaha dhaqaalaha ay ka helaan waxa kamid ah airportada ama dekada berbero airportada hadda dadka Buuhoodle u socdo xogta waxaan ku hayaa badidood inay maraan ama mari jireen Hargeysa ama Gaalkacyo ay mari jireen ama Garowe inuu qofka deegaanka uu ka galo kadibna gaari uu muddo dheer uu ku soconayay marka airportka waxaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo ma la hagaajiyay ama muxuu u baahan yahay aragtidaada airportka in la hagaajiyo si looga hagaajiyo loogu dhiso guri dadka martida ay ku nastaan ka dhoofay airportka iyo in loo dhiso airportka naftigiisa si caalami ah in loo dhiso oo laami laga dhigo taa maxay ku qaadan kartaa gaar ahaan madaar inay magaaladu leedahay marka laga reebo garoonka axmed dhawaan ganacsato deegaanka oo dadka ganacsatada qaadka keenta airportka dayactir ku sameeyay oo runtii dayactir baraar ku sameeyay guriyana waa loo dhisay hadda airportka waxa u baahan yahay kaliya in guriyahana loo badiyo iyo in la saaro waxa la yiraahdo laami oo laami la saaro inta leeyahay laakiin marka hore fikirkan dhismihiisa airportka qurbajoog baa dhistay ma sha Allah ee dadkii deegaanka laakiin hadda yarto dhalinyaro oo dadka deegaanka oo shaqaalqaamay bayna dhawaan diyactir ku sameeyay runtii
oo dayactir fiican ku sameeyey laakiin sikurid ahaanna aada u fiican iyo deegaanka ciidamo deegaanka gacanta ku haya oo runtii dadka markay dhoofayaan markay soo degayaan iyo baala aan waa ugu mahad celinaa runtii tallaabadaas fiican ay sida garaamku ay u hagayaan maamulka garaamka gacanta ku haya aad baa ugu mahad celinaa laakiin markaa sawir guud ku siiyo airportku wuxuu u baahan yahay in laami la saaro iyo in guryo fiican oo qurux badan oo runtii helo waxaan dadka deegaanka ugu baaqan in arrintaas laga qayb galo si horumarka deegaanadeenu ay usii baraadhaan oo diyaaradan meelo kale la gaarsiiyo oo kale ka degto oo horumarku saa ku balaadho waaya kolle darwiish t v waa idinku taageeraynaa in airportkaas sidii laami looga dhigi lahaa ama casriya waxaan rabaa su-aasha ugu dambeysa inaan ku weydiiyo dabcan gobolka yani ama buuhoodle xildhibaanada ka taga waa xildhibaano gaar ah buuhoodle waxay ka fekeraysaa inay marti soorto xildhibaanada laga doorto keliya buuhoodle mise xildhibaanada gobolada kale aad og tahay gobolada caqabadaha ku jira sida sanaag iyo soolba inay iyaguna iman karaan oo dhammaan xildhibaanada sool iyo sanaag ee cayn oo dhan lagu soo doorto deegaankaas dhinacay u badan tahay buuhoodle axmedow waxay diyaar u tahay inay marti qaado guud ahaan xildhibaanada sool sanaag iyo cayn inay marti qaado maadaama oo aynu ognahay in deegaanadii kale ama buucama ha noqoto ama talle ha noqoto ama xudun ha noqoto maamulada garowe iyo hargeysa ay ku dhow yihiin oo culays military ay min ciidan ay saari karayaan marka deegaankan hadda waxaa looga diyaar garooway inay marti geliso buuhoodle waana ku filan tahay buuhoodle in xildhibaanada sool sanaag ay lagu doorto doorashadoodana si xor uga dhacdo guddida doorashooyinka federaalkana halkan ay yimaadaan axmedo aad bay ugu filan tahay waana ka fargalayn kartaa waana qaadi kara dadka martida noo ah waa soo dhaweynaynaa waxa weeye si doorasho xor iyo xalaal ka dhexdo ka dhacaysa waaya waxay ila tahay haddii dadka u tartamaya siyaasadda oo kale lacag toosa ay ku bixiyaan doorashada ay ku gelayaan deegaanka iyo nabadgelyada in lagu sugo waa awoodaan baan u malaynayaa ciidama in la helo ilaaliya nabadgelyada magaalada iyo nabadgelyada aadna waan ugu anigu naftiga fikirka waa soo dhaweynayaa in xildhibaanada iyo dadka qurba joogta ay taageeraan nabadgelyada in dhaqaale lagu bixiyo si ay doorasho nabadgelya meesha uga dhacdo aad baad u mahadsan tahay cali dhagjar oo ah nin wariye oo telefishinno badan ka shaqeeyey waxaan rajaynayaa bal in annaga noo soo wareegi doonto markay telefishinka hawshiisa qabsato aad baan ugu faraxsanahay darwiish t v qofka koowaad insha allah ka howlgalnaba noqon doona haddii lahayd aad baad u mahadsan tahay calaykum salaam waayahay barnaamijku waa inoo furan yahay waanan idinku soo dhaweynayaa dhammaantiin qof walba oo raba barnaamijka in uu nagala qayb qaato waana soo wici kartaan haddii ilaahay idmo waxaan isku dayaana barnaamijka bal inuusan hal saac uusan ka badan asalaamu calaykum salaamullah barnaamijka livekaanu ku jirnaa waxaanu ka hadlaynaa arrimaha doorashooyinka xildhibaanada hadalkii dhoobadaarood ka soo yeeray ahaa inaan xildhibaanada dowladda ay u madax banaanaadaan dadka deegaanka goboladaas iyo meeshee ku habboon oo xildhibaanadaas lagu soo dooran karaa kusoo dhawo barnaamijka waan ku salaamaya axmed oo cabdi yuusuf oo kaasoo waayo magaalada minneapolis minnesota niyahow horta aada u mahadsan yahay ninka la yidhaahdo dhoobadaare runtiina wuxuu ku jiraa shaksiyaadka aada u dhaqdhaqaaqaya hadda deegaanadan xuquuqdooda inay helaan in baarlamaankooda oo ugu horeeya xuquuqda maaragtay asaasiga ah ee deegaanadani maanta u baahan yihiin in ay iyagu masiirkooda ku yimaadaan oo maamullo kale iyo reero kale ayna maaragtay qaadan oo ayna boobin marka arrintaas waxa weeye waa arrin muhiima waa arrinta hadda dadkoo dhanina maaragtay ay ku baraarugsan yihiin runtiina waxaad moodaa intii hore dadka badidoodu ama xoogooda waxa la oran karaa dhammaan waa ka jiifeen laakiin dadka qurbaha khaasatan ha ahaato aad bay maaragtay ololaha hadda u wadaan oo la rabaa ma garanaysa in la bedelo dee yacni in layska eegto uun gobolladii iyo dalkiiyo baaba-ayo oo dadkii u mateli lahaa dowladda federaalka ana uu maamulkaas oo runtii aada iyo aada u dhibaateeyey goboladan oo dhibaato badan ay kala kulmeen maamulka puntland oo maaragtay uu mar walba maaragtay xado oo boobo oo garowe ku doorto marka in arrintaa laga soo celiyo maamulkaas oo dadku ay iyagu doortaan oo gobolladooda iyo degmooyinkooda ku doortaan
meeshii lagu dooran karo waxa weeye arrintaasi waxa weeye waa lagaba maarmaan waayahay maxaad is leedahay adigu madaxweynaha maamul goboleedka puntland deni waad og tahay siyaasaddu markuu uu qabsaday in uu ugu baaqay nabadgelyo somalilan dhammaan ciidamadii dhinaca ka joogay iyagu ka huleesheen ama ka dareereen asaga naftigiisana dee macaamil ganacsiba uu la leeyahay waa maxay marka dhoobadaareed eediisa waxaa ka mid ahayd inuusan ninkan uusanba xukumin degaankan uusanna matelin waa maxay marka ninka la yidhaahdo deni sababta uu doonayo inuu ku qaato xildhibaanada isagoo aanan siyaasadiisa kasii jeedo goboladaas waa su-aal wanaagsan deni niyahow ma aha runtii anigu uma arko nin hogaamiya ama gobolada xitaa hogaamin kara ma aha waa nin qaabka lagu doortay adigu si khalada meesha ku yimid aan anigu aaminsanahay maxay hayta kuwii hore runtii de iyaga laftoodu waa mid bay ahaayeen laakiin wuxuun bayba haybad ku lahaayeen laakiin kani waxuu haybad ku leeyahay ma jirto waa nin ma garanaysaa aan siyaasadda waxba ka aqoono iska suq joog ahayn baan u malaynayaa qaabka uu dhaqmayo maamulka maxay haytay somalilandna dee horay buuba kala xidhado heshiis buu la galo de waana kii ku aroosanaya hargeysa iyo dhulka aad arkaysa maalintii dhaweyto isaga kuma aroosan baan filaya inankiisu wiilkiisu ahaa mise isaga miduu marka inankiisu ahaa waxaad ku qaldaysaa baan u malaynayaa farola isagu kasoo guursaday reerku xidid bay la leeyihiin waxaan u malaynayaa mas-uuliyaddii ka saarayd maamul ahaan degaankaas ama mas-uuliyaddii dadka dee awalba waxay iskugu darsadeen isku beel baanu kasoo jeednaa ama arti waxaan u malaynayaa xididnimadaasay ku dhaafsadeen isaga iyo farolaba taa iyo waxyaalo badanba marka waxa weeye waad arkayso anaku hadday la xidhiidaan dan kama lihin laakiin inay faraha nooga qaadaan masiirka iyaga iyo gobolladayada oo lugooyada naga daayaan unbaa muhiima maxay ahayd waad ogeydo maalin dhexdaasa deni inuu labadii diyaarada baran iyo buhoodle uu ka degay uu lahaa ay dowladda federaalka soo dirtay waday daawooyinka COVID-19 inuu lahaa ma garanaysaay waa xadgudub iyo gacan dhaaf lagu sameeyey somaliland yani halkaa waxaad ka garanaysaa inuusan ninkani lahaynba aqoon siyaasadeed iyo hadalkiisa siduu u dhigo midna uusan lahayn haddana xamar wax kale uma jooge wax kale looma afgaran laha waxa loo afgaran layahay waxa weeye aakhirku wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waaya waan ogolaanayaa goboladaas hor iyo sanaag iyo cayn hadlay ogolaado maxay haytay inaan soo xulo inta uu u beer dhigaalaynayo boorka isku khasaya waa intaa keliya marka ninkaas waa nin waxa weeyaan waa nin ma garanaysaa runtii aad iyo aad wixiisu isaga cad yihiin oo maaragtay dee ujeedadiisa uu leeyahay ay ujeedda iska gaaban tahay oo wada qof kasta garan karo marka taa haddii aan halkaa kaga gudbo doorasho dadkan goboladan ka soo jeeda waxay u baahan yihiin maanta inay xubnahooda baarlamaanka ku qabsadaan oo ma garanaysaa ku doortaan goboladooda taasi waa mid ma garanaysaa biyo kama dhibcaana qofka ugu yar iyo qofka ugu weyna maanta ma garanaysaa u xamaasadaysa iyo uu doonaya gobolada f s c waa lagu qaban karaa meelo badan lagu qaban karaa kamid oo buuhoodle kamid tahay magaalada buuhoodle oo hadda cali lecture oo hadda kula hadlayay uu maaragtay ka warbixinayay uu sharaxayay arrimaheeda ammaankeeda iyo riboorkeeda waxa weeye waa meel muhiima way ciidamo badanna waa joogaan waxay u baahan tahay ciidamada laftooda in lasii mobilize gareeyo oo la maaragtay ciidamo magaranaysa calaamad loogu xidho doorashooyinka ilaaliya in magaranaysa gaar maaragtay loo saaro intaa un bay u baahan tahay magaranaysa doorashadana waxaa lagu qaban karaa si buuxdaa loogu qaban karaa magaalada waayahay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal tusaale ahaan adigoo ama degaankaada aadan sheegayn ama waxaa dhacda marar badan in beeluhu qaarkood ama degaanada qaarkood qofka ay rabeen ama qofka ay rabeen uusan helin xilkii baarlamaanka laakiin nin ay urur siyaasiya markii hore shaksi baa wadan jiray laakiin hadda nidaamka soo socda waxa weye qaarkood ururay ku dhawaaqanayaan urur walbana lacag buu raadsanayaa xildhibaan aanan degaankaaga laga taageersanayn in uu booskii xildhibaanada dhaqaale aageed uu ku helo see looga hortegi karaa arrimaha noocaas oo kale ah in
qofka tegaya xildhibaanka uu noqdo qof dadkaasi ay ku qanceen inuu yahay qof wax u qabanaya laakiin uu noqonin lacag koox gaar ay ka bixisay. wallahi way jirtaa arrimahaas way jiraan shakhsiyaad ku jira ururo ama xisbiyo oo magaranaysaa lacag iyo waxaa la isticmaalayo lagu dooranayo arrintaasoo kale waxaa looga hortegi karaa isku duubni gudaha iyo dibaddaba ah in dadka la yaqaano wadaniyiinta gumaysiga kasoo horjeeda soomaalinimada jecel xaquudirirka ah in magaranaysaa ay si aqoon ah oo ma aha in qof aan la aqoon iyo qof ururo ay wataan in la doorto oo meesha la keeno waa in dadka shacabka grassrootska wax shacabka ka soo go-ay qof la yaqaano oo daacada in uu ka soo baxo gobolada oo la yaqaano oo la odhan karo hebel waxa iyo waxaa ku qabanaya laakiin qof aan la aqoon sidii dadka horena loo dooran jiray dee meelaha magaranaysaa maamulka puntland uu ka qorqoran jiray isagu u dirsan jiray noocaas oo kale iyo noocan kale ee ururada aad sheegaysa ururada iyo gurubyada ka socda lacagaha isticmaalaya waa la mid wey waa la mid marka waxa weeye waa in dad daacada oo la yaqaano aqoon inaku goboladan had iyo jeer waxaynu ku baanay dad aan la aqoon oo aan aqoon loo lahayn baa magaranaysaa iska yimaada maaragtay magaranaysaa yimaada xukunka ama ku biira dawladda marka waxa weye waxaa loo baahan yahay dad la yaqaano oo daacada oo magaranaysaa la yaqaano historygooda iyo waxay soo qabteen iyo agsaarta waxay aaminsan yihiin iyo inay dadka wax u qabanayaan karti iyo aqoon iyo hufnaan leeyihiin baa loo baahan yahay in magaranaysaa la geeyo magaranaysaa baarlamanka iyo dawladda oo goboladan u matalaan si xuquuqdoodii asaasiga ahayd ee maaragtay ugu soo dhiciyaan goboladan SSC haddii aan dadkaa la helinna oo la geyn dad noocaas aan la geyn magaranaysaa baarlamanka oo aan la dooran oo ina dadka ayna ka imaan rabitaankoodana dadkan iyo gobolada dhibaatadaas ay ku jirayaan kama baxayaan waayahay haddii la helo xildhibaanada ay dadku doortaan maxaa isbedeli kara bay kula tahay xaaladda hadda gobolka xaaladda gobolka way isbedelaysaa wax badan baa iska bedeli kara waxa weeye horta xaggii waxqabadka waxa weeye waad og tahay xildhibaanada ugu jira dowladda federaalka mid walba gobolkiisa iyo deegaankiisa u doodaa waxyaalo badanna way uga qabtaan dowladda wixii xaq ugu lahaayeen waxa weeye hadday tahay magaranaysaa xaggii caafimaadkii hadday tahay eeriboorradii hadday tahay biyihii waxyaalaha aasaasiga ah baa ugu horeeya waxaa kale oo ku xiga inay u doodaan gobolada magaranaysaa maamulada kala joogaan oo ay magaranaysaa ama ay usoo dhisaan xitaa ay ka qayb qaataan in loo dhiso magaranaysaa maamul taga dowladda federaalka hoos taga way ka qayb qaadanayaan oo waxa ugu horeeya asaasiga ee dowladda kala dooday arrinka xagga masiirka goboladan iyo ciddii mateli lahayd waayahay marka kulley sidaan anigu ka shakisanahay somaliland naftigeeda way isku dayeysaa xildhibaanada waqooyiga hartiga ciday doonaanba ha noqdaan inay qaar iyaga la fikera ay ku biiraan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya marka adigu ma isleedahay mid ka mid a waxyaalahay dadka dooranayaan inuu qofku yahay qof aaminsan dadka inay helaan maamul u gaara oo ka madax bannaan labada maamul se maxaad u aragtaa qofka in lagu doorto axmed waa erayadan haddeer kuu sheegayay qofka haddii aan la aqoon wuxuu noqon karaa xitaa qof somaliland ay wadato way dhici kartaa somaliland lafteeda inay u hoosgeliso marka waxa weeye waa in la yaqaano inuu yahay qof gooni isutaaga kasoo horjeeda soomaalinimada maaragtay iyo midnimada soomaaliyeed aaminsan goboladan maxay tahay waxaa qabadkooda u taagan oo magaranaysaa daacad u ah raba goboladan inay noqdaan gobollo soo gaara ama lamid noqdo gobolada kale hareerahooda ah maamul inay yeeshaan raba arrintaa qof ku doodayo u taagan oo aan wax kala qaban oo aan wax kale muqdisho u joogin waa in la helaa qof noocaas waxa weeye axmed oo aan kugu darayaa dadka qurbuhu aad iyo aad bay arrintaa ugu baraarugsan yihiin olala badan bayna dibadda ka wadeerin badan laakiin meesha dadku ka hurdaan waxa weeye waa dadka gudaha weeye dadka aada u hurda oo weliba dad la kala qaybqaybiyada oo xitaa aaminsanba maamulada laftooda iska aaminsanba qaarkood badidoodu inay magaranaysahay kuwa qanacsan dhoomoodaya maamuladan inay dowlad yihiin marka wacyigelin badan baa gudaha loo baahan yahay waxaan kale oo hadduu ku jiro khadka halka uga baaqi lahaa cali dhagjar arrinta waa in aada loo daldalgeliyaa dadka gudaha wacyigelin loo sameeyaa arrintan inay ka qayb qaataan haddayna dadka guduhu iyagu ayna arrintan u istaagin oo ayna iyagu waa dadka ay taabanaysay dhibaatadu iyagaa jooga dalka haddayna arrintaas ayna ka qayb qaadan oo ayna hormuud u noqon waxba socon maayaan marka waa inay mudaharaada qabtaan waa inay hadlaan waa inay magaranaysaa
inay xoojiyaan weeye codkooda taasaa loo baahan waaya aad baad umahadsantahay cabdi yahay mudan waaya haddii uu jiro qof kale oo raba inuu barnaamijka soo waco hal qof waan isku dayayaa insha allah in aan siiyo qadka telefoonka inta aan barnaamijka aanan gabayn sida aan ognahay dadka soomaalida qorshahooda oo xun awgood wax badan ummadda kama sii hadlaan tusaale ahaan arrimaha doorashooyinka oo idil ama gebi ahaanba waxa ay ahayd in la xaliyo muddo hore oo soomaalidu xilliga ugu dambeeya unbay wax iska weydiiyaan laakiin xaqiiqdii waxay ahayd arrimaha doorashooyinka oo dhan in ummadda soomaaliyeed mar hore la xaliyo ama la xaliyo sidaasoo kale dhibaatooyinka aanu ka hadlayno oo deegaanaadka ka jirana waxaa ka mid a in xilli dambe ama qofkii qaldanaa ama qofkii aanan waxba qabanayn uu mid gaar ah uu bosishonkii uu galay in ay dadka ay arkaan dhibaatadii ay arrintaasi ay ku samaysay laakiin wax walba waxaa la yidhahdaa dawada ugu wanaagsan waa ka hortagga in laga hortago in ay kugu matelin dowladda qof aan wax qabanayn ayaa ka wanaagsan in aad marka dambe aad cabatid xaqiiqdii dhibaatooyin badan oo gobolada ka jiray sababaha ayan xildhibaanadu ayan uga hadlinba qaarkood waxay aaminsanaayeen in ayan dadkaasi dooran si gaara ama si gooni ah inay ku tageen baarlamaanka soomaaliya sidaa la aldigeedba ayan wax mas-uuliyada ayan iska saareen goboladaas marka aad baan ugu mahad celinayaa dadkii barnaamijka na soo wacay ee maanta nagala qayb qaatay gaar ahaan labadii nin oo dhalinyarada cali nairobi joogay iyo uriye ah iyo cali dhagjar oo isaguna buuhood la joogay haddii ilahaydma sidaan idiin sheegayba insha allah darwiish t v bishan dhammaadkeeda haddii ilahaydma bishan dhammaadkeeda ama oktoobar horaanteeda waxa uu soo geli doonaa telefishinada soomaaliya laga daawado haddii ilaahay idmo dhinaca maraykankana waxaan isku dayaynaa saacadda 1:00 duhurka markay tahay oo ku aadan 9 fiidnimo geeska africa in uu kasoo galo dhinaca barta bulshada inta aanu haddii ilaahay idmo sida tooska ah aanu uga qayb qaadan doono wacyigelinaha iyo barnaamijyada ka baxa telefishinka barnaamijkan anigu aan sameeyo oo la yidhaahdo sooyaalka darwiish t v-na waxa uu ka mid noqon doonaa barnaamijyada ka baxa telefishinkaas haddii ilaahay idmo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa dhalinyaradii soo wacday iyo ninka odayga cabdi iga soo wacay magaalada minneapolis inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kan ku xiga oo anigu axmed laari waxaan idin leeyahay sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu